fadlan subscribe saar, like, share and comment. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada janaalka Dr. Xalana Keer aad ugu barataan inaad habeen kasto aad ku daawataan casharada caafimaadka sida barashada daawooyinka farmakolojiga. Caawa waxaan ka hadlaynaa metronidazole. Metronidazole maxaa la dhahaa? Brand name-keeda metronidazole waxaa loo yaqaanaa Flagyl. Metronidazole waxay ku timaadaa 3 shay oo kala duwan. Number 1 tablet oo ah kiniiniyaal. Number 2 syrup oo ah sharoobe. Number 3 infusion oo ah faleembo. Indication or principal uses waxaa loo isticmaalaa daawadan gooryaanada kala duwan sida amebiasis, giardiasis, trichomoniasis. Sidoo kale metronidazole waxaa loo isticmaali karaa xanuunada ku dhaca kaadi mareenka iyo xanuunada ay keenaan bacteria vaginosis. Hagaag, how to drug work? Sidee daawadan ku shaqeysaa? Daawadan waxay u shaqeysaa burburista difaaca gooryaanada waxayna ku guuleysataa in ay suuxiso ama ay disho gooryaanada. Dosage-ka qiyaasta daawadan laga qaadan karo dadka waaweyn waxaa la siiyaa 500 mg oo kiniini ah 16 xabo 1 times 2 habeen iyo subax. Faleembo infusion 12 xabo 1 times 2 oo habeen iyo subax ah. Caruurta yar sharoobo ayaa la siiyaa miligaraamkoodana waa 200 mg 1 times 2 ayaa laga siiyaa. Daawasiinta caruurta waxay ku xiran tahay da'da iyo miisaankiisa. Hagaag, side effect dhibaatada uu yeelan karo daawadan metronidazole. Number 1 matag nausea. Number 2 cuntada oo ka xiranto loss of appetite. Number 3 madax xanuun headache. Overdose maxaa la dhahaa? Daawadan oo qiyaasta la iska badiyo waxay keeni kartaa number 1 nausea, number 2 vomiting, matag. Disease interaction waxaa la dhahaa cudur lid ku ah. Maxaa lid ku ah metronidazole? Waxaa lid ku ah cudurada kala duwan sida number 1 neerfaha, number 2 kaliya xanuunka, number 3 beer xanuunka. Hagaag, contraindication lama siin karo ilmaha ka yar metronidazole 2 sano. Daawadan metronidazole wax daata ah laga mahaayo sababtoo ah hooyada uurka leh in uu dhibaato u keysan karo iyo in kale lama kala oga. Hagaag, maasha Allah, waa mahadsantihiin. Cashirkeena caawa halkaas ayuu noogu egyahay.